gudoomiye iyo gudoomiye labadiinaba waa ku mahadsantihiin annaga waajibaadkana saaran waxaa waaye sidii aan bukaamadan yacni xaaladooda ku badbaadi lahayn ilaaha badbaado leh laakiin dhinacayna waxay naga quseeya inaan badbaadino xaaladda iyo rajada aan ka qabno dhaawacyadan noo jiifo aad iyo aad bay u fiican tahay waa mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan shacabka magaalada muqdisho fariin u dirno kan lagu aqarxinayo iyo kan laga soo agwadayo iyo kan la agmarsiinayo dhammaantood waa mowto socoto dadkaani waxay rabaan ummaddaani inay baabi'iyaan magaaladan ay rabaan inay qaflad geliyaan shacabka waxaan ka codsanaynaa hadduu ilaah yidhaahdo in ay garab istaagaan dowladda in ay muxuu ahaay garab ku siiyaan cadowga inay soo sheegaan raajicuun allah u naxariisto maanta intii ku nafweysay qaraxii ka dhacay degmada Xamarweyne masiibo aad u xanuun badan ayay ahayd inta ku dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantana allah bogsiyo dhammaan waxa dhaawacmay waa ummadda Soomaaliyeed shacabkii Soomaaliyeed aan waxba aan galabsan ku nool caasimadda gobolka Banaadir waxaan u mahad celinaa dhammaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee isbitaalada la wada geeyay dhaawacyada aan dhammaantooda dhaawacyada inaan soo booqano aan ugu nimid inaan la shaqeyno hay'adaha amniga aan la shaqeyno dawladda aan la shaqeysiin maalin walba waxa la baabi'inaa waa shacabka Soomaaliyeed aan waxba aan galabsanin goobaha ganacsiga iyo masaakiinta iyo shacabka iskugu imaanayaan ayaa mar walba waa markii dhowr jeer dhibaato soo noqnoqoto shacabka loola beegsanayo waxaan leeyahay kuwa qaswadayaasha ah dhibaato wadayaasha ah ummadda beegsanaya shacabka waxaan leeyahay Allah soo hanuuniyo xaqa Allah tusiyo dhiiga walaalkiisa oo baneystayna ha tusiyo inuusan Ilaahay u baneynin